ساكن لبيه توجه بركي لحدي يا رورنمان هرقيسة إلا ساعدها ديارتي أسوكي سبتها دولة الفدرال كاي يقول لي 5 ساعات أي يقول لي ديارتي ووحكس الوجرجري horta inta ogaada oo maskaxdeena sii galiya dagaal cidiyadina oo aan fiicnayn ayaa muuqda waxaan ummadda reer galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada iyo dawladaha adduunka iyo UN-ka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelinta oo dawladda federaalku nagu haysaa waa araxjab reer galmudug loola jeedo inaanu ka fiirsano oo aanu kulligeen ogaano oo aan iska ilaalino kuwa noo soo diri doono reer galmudug oo iska ilaaliyo kuwa noo soo diri doono wallaahi waa masaamiin indhaha idinka mudaysa wallaahi masaamiin indhaha idinka mudaysa weeye madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo hadlay waxa uu sheegay in lagu xanibay madaarka caalamiga ee cigaal ee magaalada Hargeysa haddaba arrintaasi waxa gaashaanka u daruuray agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada ee qarankani Somaliland mudane Cumar Cabdilaahi Aadan waxaanu agaasimuhu sheegay inaanay haba yaraatee waxba ka jirin hadalkaasi ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug agaasimaha guud oo arrintaasi si qoto dheer uga hadlaya waxa uu yiri maanta waxaan halkan saxaafadda ugu yeeray si aan u cadeeyo hadal ka soo yeeray nin yiri waxaan madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ku yaala leeyahay galmudug oo shalay saxaafadda u sheegay in lagu xiiray madaarka Hargeysa iyadoo arrintan ay ka dib ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka dambeysay arrintaasi runtii arrin wax ka jiraan ma waa arrin aan saliir raatoon lahayn dawladda Soomaaliya kama taliso Somaliland laba dawladood oo 27 sano kala maqan oo laba calan kala leh oo dunida sida ku ogtay baanu nahay wax amaro halkan ka shaqeynayo dawladda Soomaaliya ay ka bixin kartaan ma jiro laakiin ninkaas marka ugu horeyso horta wuxuu ka yimid Dubai wuxuu la socday diyaaradda Fly Dubai marka madaarka Hargeysa transit buu ku ahaa qof rakaab uma warkayna mar dambe aan ogaanay inuu ninkan yahay ninka sheegta maamul goboleed la yiraahdo galmudug madaxweyne kay qof rakaab Fly Dubai la socda FAB dun baa la geeyay qolada shirkadaha localka ayaa waday oo halka fariisiyay oo qof transit oo muxtarim uma warkayna inuu madaxweyne yahay mar dambe aan ogaanay oo madaxweyne meel ka sheegto marka kol hadaan aan garanay wax way warkiisuna halkaas uu been ku yahay marka madaarka Hargeysa transit buu ku ahaa xeerkii transit ka la mariyay waxa hawada Soomaaliland si sharci darro u soo gashay diyaarad aan ogolaansho ka haysan wasaaradda duulista hawada diyaaraddaas oo markii koobaad ka degtay garoonka Buuhoodle markii labaadna ka soo kacday oo madaarka Hargeysa timid marka diyaaraddaas sharci darrada ku soo gashay oo runtii ahayd diyaarad marar badan oo horena Buuhoodle degtay oo uga dignay inay hawada Soomaaliland bila ogolaansho soo gasho aanu raadinaynay ayaa halkan madaarka Hargeysa lagu qabtay kambanigoodii baa la hadlayay waraaqa laga saxeexayay arrintii intaas 4-5 saacadood qaadatay kadibna markii shuruucdii la dhameystiray ziyaaradii waan fasaxnay sidaas ay ku qaadeen ninka madaxweynaha ah runtii arrintaas halkan idinku yeeray arrin saliira toona la maaha dawladda Soomaaliya dawladda Somaliland waa kala laba dawladood amarkooduna halkan kama shaqeeyo wixii iyaga ka dhaxeeya is eriyadana Somaliland marnaba dhex bay ka tahay ma dhex galayso waxay u aragtaa dal aanu jaarnahay oo ixtiraam iyo walaalnimo ayuu naga dhaxaysa laakiin is eriyadkoodii is haysigoodu Hargeysa iyo Somaliland kama shaqeynayo Batri Koosar Maxamuud telefishinka Aerial Hargeysa